أعني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا برنامج كني قيمها بدنا فاسألوا أهل ذكري إن كنتم لا تعلمون. برنامج كني وبرنامج تضباط لا وحنا يدين صوت يارسي منظمة الإحسان للرعاية الاجتماعية. برنامج كان وحد سؤاله سا كسو هجاشين كرتان صناديق دمسايز كودجن إيو إيميل كاي موصل لهذا ihsanmedia@gmail.com. barnaamijkan waxaad mar kale dib uga taalacan kartaan webpage-ka ay marsadu leedahay ihsanmedia.com iyo .net iyo youtube-keeda. fadhigeena caawa fadhiga 34aad taariikhda caawa waa 5tii bishii 5aad 1438 hijriyada oo waafaqsan 2dii bishii 2aad 2017. su'aasha caawa fadhigeena ugu horeeyay raqamkeeduna waa 469. wuxuu leeyahay saa'ilkan: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مر أن دوني إن حاسك يغفره وين يجمع قنيد وحن ورقتك قري ريادا عربي جاء وأنس دومريي كلمة دي وحلو غفر لها ووحن قري رجاء لطقت هل كوقري لها طلقت ورقد داسي ويجا دي حاسكي ما يغفر انتهي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد. horta marka hore talaaqa iyo furitaanku hadalna waa ku dhacaa qoraalna waa ku dhacaa. hadduu ninku ku hadlo furitaankana wuu dhacayaa, hadduu qoraal sameeyana oo uu qorana sidoo kale waa dhacaya sida jamaahiiru ahlicilmi qabaan. taa waa qodobka labaad, hadduu ruuxu kelimada talaaqa ee furitaanka oo xuruufteeda kala bedelo oo maalan ta'da oo kale ta' ka dhigo taaliq oo kale u yidhaah, ama sida masaaridoo kale qaafka dhanba uu ka dhigo hamse ka dhigo, ama muxuu aha yidhaahdo maalan taali oo kale yidhaahdo taali. hadduu xuruufta wax ka badbedelo laakiin qasadkiisu furitaan yahay, furitaanku waa dhacaya. midka marka meeshuu qori lahaa طallaqtu lataqtu qoray, qasadkiisuna uu ahaa inuu furitaan sameeyo, ninkaasi xaasku waa ka furantay. lianna say culimmadu leeyihiin alcibratu fi اlcuquudi biاlmaqaasidi wاlmacaani la biاlalfaadi wاlmabaani. yacni maqsuudku waa maxaad ula jeeday, lafdiganaad isticmaashay maxaad ula jeeday. haddaad furitaan ula jeeday xaraf iyo laba kelimo isdaba martay kelimadii aad isticmaalaysay, furitaankii ma baajinayso ee xaasku way furantay. wallahu aclam. جزاك الله خيرا. سؤاشين 470 wuxuu leeyahay saa'ilkan: assalaamu calaykum dhammaan howlwadeenada barnaamijkan qiimaha badan. waxaan si gaar ahaan u salaamayaa sheekh maxamed cabdi umal. magacaygu waa maxamed xasan cabdisalaam oo jooga degmada Wallaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose. sheekha waxaan weydiinayaa su'aashan: alle wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqiibun catiid. waxaan garanay in laba malag ay garbaheena saaran yihiin oo ay qoraan hadal walba oo aan ku dhawaaqno. haddaba sheekhow, raqiib iyo catiid garbahay kala saaran yihiin, keese wanaagga qora keese xumaanta qora? sida saxiixa ah, labada malag ee labada garbood kala saaran ama midig iyo bidix kaa kala jira, raqiib iyo catiid lama kala yidhaahdo. fahamka soomaalidu haysato waa khaldan yahay. waxay u haystaan midna in la yidhaahdo raqiib, ka kalena la yidhaahdo catiid. saasna sax maaha. labadooda mid kasta waana raqiib waana catiid. laanna riqaabada iyo waa laba sifo oo riqaabadana waxaa laga wadaa waa ilaaliye, wixii addoonka ka soo baxaya ficil iyo qowl ah buu ilaalinayaa. raqiib waay, waa waardiye. catiidkana waxaa laga wadaa waa mucaddun oo waa diyaar, waa mid la diyaariyey oon kaa maqnayn
oon ku halmaamaynin kaa mashquulaynin yaa mar walba kuu diyaarsan marka waa kuu diyaarsan yahay iyo waa ku xifdinaya waa ilaalinaya waxa ka soo fulaya labada macnaba labada malagba way ku sifaysan yihiin marka mid walba waa raqiib waana catiid taa horta waa macno u baahan sixitaan u baahan waxay la macno tahay aayadaasi aayadda kale rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala wa inna calaykum laxaafidiin xaafidiin bimacnaa waxay la macno tahay raqiib oo kale wa inna calaykum laxaafidiin kiraaman kaatibiin malaa'igtaa wax qoraysa amaa labada malag dhinacyahay joogaan iyo meeshay aadamaha ka jiraan aayadda ta ka horraysaa sheegtayoo id yatalaqa almutalaqiyaani can ilyamiini wa can alshimaali qaciid midig iyo bidix bay fadhiyaan oo ay ka kala jiraan taana aayadda horaa sheegtay amaa shaqada say u kala leeyihiin xadiidka nebiga sal alla alay wasalam baa caddeeyo xadiidka abu umaama nebiga uu ka warinaya sal alla alay wasalam ee uu soo saaray imaamu tabaraani bayhaqina fi shucab uu ku keenay sheekh albaanina uu leeyahay waa xadiid xasan ah wuxuu rasuulku leeyahay sal alla alay wasalam ina saaxiba ashimaali layarfacu alqalama 6 saacaatin can alcabdi almuslim almukhti aw almusii yacni labada malag midka bidixda xigaayay qalinka kor buu u haynayaa 6 saac gudahood addoonkii muslimka ahaa ee dembiga galay khaladka galay markuu khaladkii galay 6 saac wax ka qori maaye qalinka kor buu u haynayaa fain nadima wastakfara minha alqaaha 6 saacad gudahooda hadduu addoonkii qoomamoodo dembigii ka qoomamoodo ka xumaado ilaahay dembi dhaaf weydiisto ka soo noqdo qori maaye sidaasuuba ku tuurayaaba waa la tuuraya wailaa kutibat waaxida 6 saac hadduu soo noqon waayo markaasaa hal dembi loo xariiqaya xadiidkaasi wuxuu tilmaamayaa malagga khaladaadka iyo dembiyada qoraya inuu yahay malagga xiga dhanka bidix dabcan ka kalena xasanaadku qoraya waa labadooda xadiid baa tilmaamaya inuu midka midigtu amiir yahay midka midigtu inuu madax yahay ee xasanaadka qora midka bidixda ee xumaanta qorana in madax loo yahay oo la amrayo xadiidka macnaha sheegaya waa xadiidan sugnayn oo mawduuca ama waahin jiddan bay culimmadu ku sheegaan labada malag inay madax isu yihiin oo ay kala amar qaataan oo midka xasanaadka wanaagga qoraaya ka kale madax u yaho amar siiyo macnaha xadiidka sheegaya waa xadiis aan sugnayn oo culimmada qaar mawduuc bay leeyihiin qaarna waahin jiddan aad buu daciif u yahay ma sugna marka laakiin waxaa sugan in ay sidaa wax u kala qorayaan waana madhab السلف رضوان الله عليه والله أعلم جزاك الله خيرا سؤاشينا أفر بقول تضباطني كو وحوله سائل كان السلام عليكم شيخنا أشاعرة مقالا الشاعرة أتباع أبي الحسن الأشعري الذكر واكسو هذا اللي سؤاشنا كلوين نوتمت الشاعرة ما أهل السنة كسو جوابني haddana waa iyadii oo si kale u taallo ashaaciradu magaala waxaan leenahay marka koowaad arrinta gaalaysiinta dad muslim ah in diinta laga saaraayay waa arrin adag oo ay waajib tahay ruuxa diintiisa u baqaya iyo aakhiradiisa inuu aad uga haybaysto waxaa ila nabigeennu sal alla alay wasalam waa ka dhahaya xadiidka cabdillaahi bni cumar iyo kayrkii fi saxiixayn rasuulku uhi sal alla alay wasalam أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما نينكي ولالكي كويدا هذا قال يهو ميدكود بيكون نقطة كلمة داس marka inaad dadka iska gaalaysiiso oo darinta ku fududaato waxay daliil u tahay inay diintaadu dhiman tahay ama diin xumay daliil u tahay salada takfiirka oo quluwi lagu sameeyo bal waxa dhici karta ruuxaasi takfiirinta ku fududaanaya dadan gaala ahayn oo muslimiinta ah gaalnimo ku xukumayay isaga ka mudan gaalnimada nabiga markii la weydiiyay sallallahu alayhi wasallam ma kan wax gaalaysiinaya mudan mise kan la gaalaysiinayo bal irami buu nabiga sallallahu alayhi wasallam kan gaalnimada tuuraya baa ka mudan inuu gaaloobo marka waa halis tawaqul
قلب كلابات الشاعرة دمان تود اسكو معتقد ما أهين متقدمين تي الشاعرة ويكاد دوايين معتقد أهان ويكفضوا ضايين متأخرين ته كلما وقت مربع متأخرين تو يكسي فوقادين قلدي هوري مذهب كودي معتقد كودي ومتأخرين توحى الصامين بدن كويا شيء فلسفة دي هي كتبتي لسوت ترجمية فلسفة دا آدو صاميس قضوا كسدحات لبين وكلا قاضينا أشخاص أهان إيه مذهب أهان أفكارته إيه معتقداتك إيه بدعة أي سنة كو خلافين قار كم ذا أي مدي سلفكو إني قال لما تهوي حكومين لأن أصل كود وحي كسو جدا جهمية دا إيه معتزلة دا سيدا مثلا بدع دا أي كنت المامين أي مدي سلفكو إني بدع مكفرة تهي وحكم ذا إن لا إنكراء إنه إلهي عرشه سكسريه يعني استواء الله على عرشه وعلوه على خلقه أولا إنكراء أي مدي سلفكو وحي اسكر راعين أرنتاسي إني قال لما تهي ابن تيمية وحوليه ولهذا كان السلف مطبقين على تكفير من أنكر ذلك روحي إنكري إنه إلهي عرشه سكسريه كاقالي سينتيسا أي مدي سلفكو اسكر راع سرايين به وحكم إذا مسايش النوع سوكلاء أي مدي السلفكو أي إطلاقين قال لماذا إذا إني تاي بدعة مكفر وقال لما كيني كرته مسألة قرآنكو إنه مخلوق يهي ومعتقد يدنا أشاعرة أي كتاجين مركب مذهب كوضا الحقيقيو مسائشة أما بدعة مكفرة أنا كم ذا ساس درادت إني مسألة قبان وحا كتوصي كتب توضا كتوصي صو بيجوري مركو شرحي جوهرة التوحيد وحليه هي ومذهب أهل السنة أن القرآن بمعنى الكلام النفسي ليس بمخلوق وأما القرآن بمعنى اللفظ الذي نقرأه فهو مخلوق قرآن كأول لفظ كان أن أخريه إنها ومخلوق بويل مذهب أهل السنة والساسل يعني أشاعرة كوضا مركا القول بخلق القرآن أي مدي سلف وحيد هذين وكفري وحكم إذا مثلا إن الروح إنكره صفات إلهي قار كم إذا معظم كذا وإنكر سيئين وادي إذا أشاعرة مركا كمسائل كمعتقدات كأفكار مركا اللي هذا أشاعرة أفكار توضوحها كتير قار بدن أو بدع مكفرة معتقدات كفر إيه قال لما كيني كرتا ويكتشران أي مدي سلف كنا مركا جهمية كهالليون وجوه الرئي معتزلة ده وإطلاقين قال لما ده طيب تانا وقضب كلوي قضب كسدحات أرنت كسابسن iyaga acyaantooda iyo ashkhaastooda in la takfiiriyo arintaasi aymadu way ka gaabsan jireen acyaantooda in la takfiiriyo maxaa yeelay san marar badan ba soo tilmaanay waxa kala duwan ruuxan ku dhacay khaladka gaalnimada keeni kara iyo laf ahaantiisu way kala duwanta waxa laga yaabaa inuu falku ku dhacay aqeedadu ku dhacay bidcadu ku dhacay gaalnimo keeni karto laakiin laf ahaantiisu uusan gaaloobin لأن أما تأول باكو دعي أما الشبه أما الجهلي أما وحوم باكو جاي سيداس درادد أيجا أهان أعيان أهان أشخاص أهان جالسين تودي إن دين تلاقى ساراي ما أهين مذهب كي علماء رضوان الله عليهم ورحمهم الله تعالى صوت وحويان وحيليهم شبهة كلالتي عرضت لهم الشبهة عيوب أنت مركز روحها سوكر إقامة الحجة إزالة الشبهة إن لقى الرفعيو مسألتنا يعني مسايش نوعا وكلاء سيد غالب كاغارهان وحا اوغي وحويان تنزيه الله ان الهي النزهان ويعيب كفوغيان مساله داس الله قلوعتي من يد حمين لكن مساله دي با الله قلوعتو قاب خلدان اي اوغلين سيداس دراديد غاليسينتا اشخاص تودو صح ماها لكن معتقدات كودا قار كفري اما بدع مكفره او كجيران شك ملها غارهان waxaa ku jira ayma waaweyn oo diintan u soo khidmeeyay oo funuunta cilmiga oo dhan kule ayaadi bayda kule مثلا علمي حديثك ركبضنا أشاعرة أخذ مي علمي مثلا تفسيرك ركبضنا أشاعرة بأخذ مي علمي فقهك ركبضنا أشاعرة أي ما بأخذ مي كتب تودين الله ما أنت لقى فائدة سنة مركا
mas'aladu wax weeyaan masaa'isha noocan oo kale ah ashkhaasta ku dhacday takfiirintoodu ma sahlana xataa jahmiyadii bay ayma fara badani acyaantooda in la takfiiriyo ay ka gaabsadeen sidaas daraaddeed ka madhab iyo ka muctaqad waa sidaa hore ama ka acyaan iyo ka ashkhaas lama gaalaysiin karo wallahu aclam جزاك الله خيرا خير الجزاء سؤاشينا أفر بقول تضباط إلا بو وحوليه هي سائل كان وحنا هي ولا يراها أو كنا الوضمة قلبتك runtii aniga ma jecel inaan halkan ku noolaado sababtoo ah xurriyad buuxda uma haysto inaan diintayda islaamka ku dhaqmo ama aan muujisto hooyadayna marar badan baan dhan walba ka fahamsiiyay inaysan halkan ii wanaagsanayn oo waxaan fasahaad ahayn aan ka faa'iideynin laakiin way iga diiday oo ima ogola inaan ka tago halkan macnaha wadamadan gaalada ee marka Sheekh Maxamed Allah ku barakeeye maxaad igula tarin lahayd masaladan wayna soo martay hadda ka hor iyadana ruuxu hadduu joogo meel uu diintiisa u baqayo oo uusan diintiisa ku dhaqankeeda uusan xor u ahayn ama uuba u baqayaba inuu fitnoobo inuu inxiraafo khatar noocaas uu dareemayo hadduu joogo inuu hijroodo oo dhulka ka tago waa waajib sharci ah waana macnaha ay ku fasireen culimada muslimiintu qowl Allah tabaaraka wa ta'ala إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا كوا أي ملائكة أوفسنا يسوي نفتك قاديس أيقو الظلميي نفتوذ وحيكون هيسا ملائكة محاد أهيدين محاد كل حسوقنا يدين markaas waxay leeyihiin kunna mustadcafiina waxaana in dad la daciifsado awood iyo tabar maana lahayn waana laga xoog badnaa markaas waxay ku leeyihiin oo dhulka Ilaahay soo waasic ma ahayn oo ma ballaadnay oo u hijrootaan oo meeshan diintiinii baad khatar ku jirtaan inaad ka tagtaan oo dhul kale oo diintiina aad xor ugu haystaan oo ku haysan kartaan oo baqayn inaad tagtaan soo idin ma furnayn cudurdaarkiin waxba kama jira way marka hoygoodu waa naar ya Allah yiri tabaaraka wa ta'ala marka يعني روحه حلقاسو كله هجرده واجب يكون دولكا إنه كتب waxa iyadana sidoo kale ku xaqiiqooyo ku soo arooray meesha xadiidkii rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam ana bari'un min kulli muslimin yuqimu bayna adhhuri almushrikiin la tara narahuma yani waxaan bari ka ahay nabi sallallahu alayhi wasallam ruux kasto muslim ah oo gaala dhexdooda ku nool dabkoodu isma arkaan nabi sallallahu alayhi wasallam طبعا culimadu waxay ku fasireen waa malkuusan diintiisa ku dhaqmi karin xurriyad u haysanin diintiisa u baqayo halis ku jiro is ilaalin kareynin markaasoo kale inuu dhex joogay waa mid amarku nabi ka bari noqonay sallallahu alayhi wasallam markaasoo kale waa inuu ruuxu hijroodo waajib ay ku tahay طيب haday waajib noqoto xaaladaadu noocaad oo taa ruux dhalinyaro ah ama ruux weynba diintiisa u baqaya inuu fitnooba ka baqayo ama shubuhaad ama shahawaad midun ay fidneeyaan oo kullumo markaasoo kale inaad ka tagto wadamadaasi laazim bay kugu tahay طيب xaalada iyada hadii marka waalidka ku diido hooya ku diido ama aaba ku diiday sida su'aasha ku qoran joog bay ku dhaheen ha tagin laga yeeli maayo inma ta'atu fil ma'ruf nabi sallallahu alayhi wasallam wixii waalid lagaga amar qaato ama madax lagaga amar qaato ama culimo lagaga amar qaato ama cidun amarkiisa la yeelo waa wixii taaca oo diinta aan khilaafsanayn haday hooyada ku tiraahdo xaraantan gal ka yeeli maysid haday hooyada ku tiraahdo waajibkan ka tag ka yeeli maysid amarka ilaahay baa ka horeeyay hooyana waa khaldan tahay hadii marka aad meesha diintaada u baqiso halis ku jirto ka tag hooyana ha ka yeeline meeshii kale diintaada aad ku ilaashanayso aad wallahu a'lam jazakallahu khairan su'aasheenan 473 wuxuu leeyahay saa'ilkan waxa lacag ii keensaday ruux wuxuuna igu yiri waxaan rabaa inaad iigu shaqeyso lacagtan si aan faa'iido uga helo hadii Allah idmo lacagtii waan ka qaaday balse waxaan ku heshiinay laba qodob oo kala ah inaan biil ka qaato marka hore lacagtan oo muayyan ah yani inaan biil muayyan ka qaato marka xigtana hadii ay dhasho faa'iido lacagteena ka qaato percentage sida 50% ama mid wax la mid ah hadaba heshiiskaas ma saxba kol hadii uu ku qanacsan yahay shakhsigaas lacagta wato ما هو غلط جيس كاسي ما صح سنة شرعه وخلاف سين معاملة النوع عاصة وحلو يقنا فقهك
شرعتنا dhexdeeda mudaaraba la yiraahdo al-mudaaraba mudaaraduna waa nooc shirkada kamida waa in labada ruux shirkoobaya midna uu xoolo keensado midna uu xoolihii ku shaqeeyo xooggiisii iyo aqligiisii aqoontiisii u galiyo muaamalada noocaasa mudaaraba la yiraahdo mudaarabada noocaasa kaliya waxa la ogolaya labada ruux inay ku heshiyaan faa'iidada soo baxda hadii faa'iido la helo in ay nisba ku heshiyaan percent oo boqolkiiba intaas aad leedahay anna boqolkiiba intaas aan leeyahay hadduu khasaare yimaado wixii khasaare xoolo ana xoolahay ku dhacayaan aniguna xoogaygi baan khasaaraya yani waqtigan galiyay iyo maskaxdii iyo juhdigii iyo dadaalkii aan galiyay baan khasaariyo waxba ma lihi adiguna xoolaha iba khasaariyo wixii khasaare yimaada raasamaalka uu ku dhacaya haday faa'iido timaadana boqolkiiba inta iyo boqolkiiba intaas oo ku sii heshiinay baan u qaybsanaynaa wixii sida ka gadisan lama ogola haday noqoto mesela wax go'an baan ku siinayaa markaasi mudaaraba ma aha ijaara la yiraahdaa waa mushahar gooni haduu noqdo iyadana waa la ogol yahay haday noqoto xoolihii ku shaqee aniguna xoolihii baan leeyahay bil kastana waxaan ku siinayaa 100 baan ku siinayaa oo go'an faa'iidadana waxba kuma lihid midaasi ijaara la yiraahdaa markaasi mushahar baad qaadataa waad shaqeysaa way banaanta waa mas'ala kale maxaan banaanayn marka labadoodii in la isku daro oo la yiraahdo mushaharna waa lagu siin faa'iidadana qayb baad ku leedahay faa'iidadana haday soo baxdo percent baad leedahay boqolkiiba 20 10 30 baad leedahay isla markaa hadana wax go'an bil walba waa lagu siino ama bil ku magacaw ama mushahar ku magacaw muhiim ah laakiin wax go'an ba hadii meesha la soo galiyo muaamaladaasi shariicada way khilaafsan tahay sax ma ah laba mid wax go'an kaliya qaado mushahar qaado wabillahi tawfiiq faa'iidana isku lugeynay wax go'an ha qaadanin oo meesha ka saar ee faa'iidada sug hadii alla keenana alxamdulillah intaad ku heshiisan ka qaad haday waxba iimaan waayaan wabillahi tawfiiq ridda ka bax laakiin wax go'an baan qaadan faa'iidadana wax baan ka qaadan muaamalada iyo xoolahana waxba kuma lihi xoogaygaan la imid sax ma wabilmunaasaba wayaan waxa aad u badan oo Kenya ku badan waliba bidaat dad badanna lagu dhacay hadda ka hor oo ku yiri war iska daayay haddana socota in dadka inta lacag laga qaado la yiraahdo bil walba waxaan ku siinayaa intaas oo go'an kambaniyo Soomaaliya u soo baxay oo rag ba kacay intay dadkii xoolo ka urursadeen bay kaceen ilaa riba ku jirtay yani bil walba 1 milyan ba muxuu ahay ka qaadi bil walbana konton kun iga soo raadso adiga halkaagi milyanna waad leedahay laakiin bil walba hal iga soo raadso konton kun 100 kun iga soo raadso oo go'an oo isbedelaynin maya sidaas daraadeed muaamalada saxda wax weeyaan xoog iyo xoolo la isku darsaday ama faa'iidada qayb kamida qaado ama mushahar kaliya qaado laakiin labadooda la isku ma dari karo wallahu a'lam jazakallahu khairan su'aasheena 474 waxa ay gabadhan leedahay assalaamu calaykum waxaan joogaa wadamada Yurub waxaan haystaa caruur haddana waxaan leeyahay uur bil iyo 10 beri ah duqeena ilama joogo waxa dhacda markaan uurka yeeshay inaan aad ugu xanuunsado uurkaas oo xitaa ilmihii kale aan ka warqabi waayo meeshan aan joogo hadii ilmuhu ay ku dayacmaan gaalada ayaa qaadanaysa cid kale oo caawisa ma jirto si aan u badbaadiyo ubadkan nool kan uurka ku jiraay ma soo ridi karaa هذا كوربين وكسو هذا اللي مثلا داس الماء مرض أورك قالوا قنتمه سيد علماء المسلمين تؤبدينهن لما سور ذكر في أي مرحلة من مراحله أما مرحلة ظهري عن روفته هي النقطة أما حنشرته هي أما عدك هيلب كاي هي ما لا سور ذكره محايل النبي صلى الله عليه وسلم إن المهيبة إنه قنتمه laga dagaalamo oo asliga wixii sharciga ku magacaawday ayuu nabigu wuxuu ku tilmaamay sallallahu alayhi wasallam alwa'd alkhafi inaad marka horeba biyahaaga inay haweenta gaadhaan oo sida uur ay ku qaato
inaad marka horeba ka dagaalantood biyaha bannaanka ku daadiso ayuu nebigu wuxuu ku tilmaamay sal alla alay wasalam waa xabaal nololin qarsoon hadda ma guntamina ogow xayawaankii minawiga ahaa ninka ka soo baxay iyo ukuntii hooyadu islama falgelin ismana gaadhin waa biyihii ilmuhu ka abuurmi lahaayeen keliyood bannaanka ku daadisay ayuu nebigu wuxuu ku tilmaamay waa xabaal nololin qarsoon maxaa u malaynaysaa marka iyagiioo isla falgalay oo abuurkii bilowday oo dhexda marayo soo rididiisa ka warran marka sidaas daraaddeed cala saxiix ma bannaana taa waa qodobka labaadi wax weeyaan tacliilaadka gabadhu ay sheegatay waan jiranahay ilmihii baa khatar ku jira odaygii waa iga maqan yahay kulligood qiil loogama dhigan karo in ilmaha urka ku jira la soo rido maxaa yeelay xal kalaa la heli karaa odayga u yeedh intaad wallaca ka baxayso yacni xanuunka ilmaha kula hayo shaqada ha ka soo tago xuluul kale raadi ilmihii uurkana lagu ilaaliyo kuwana lagu ilaaliyo waa midda labaad ee qawaacidda shareecada waxaa ka mid ah mafsado xaqiiqi ah oo dhab ah looma sameeyo adiga oo ilaalinaya ama ka hortagaya mafaasid aan la hubin ilmahan uurka ku jira inaad soo ridaayo waa mafsado maxaad u soo ridaysaa ilmahan carruur yaan gaalo ka badbaadinaya gaala inay qaadan doonto waa gacan uur ku jirta lama hubo soo ma laakiin kan aad soo ridayso waa mafsado la hubo waay marka mafsado la hubaan samaynaya tu aan la hubin baana kaga hortagaya mush macquul sax ma aha saas daraaddeed masaalix kale iyo jidad kale iyo xal kale ha la raadiyo laakiin ilmaha uur ku jira yaan la soo ridin wallahu aclam jazaaka allahu khayran su-aasheenna 475 waxay leedahay maamadan waayeelka ah assalaamu calaykum waxaan ahay maamo waayeel ah waxaan ku noolahay waddanka Sweden waxaan qaataa lacagta la siiyo waayeelada ee loo yaqaano caydha meeshiina ma qaban karo oo waxaan soo aadaa Afrika waan ku xanuunsadaa Sweden xilliyada qabowaha waxa ay dhibay qabowga ayaa idhiba sharciga dalkan u deganna waa inuusan ruuxu ka maqnaan karin dalka ilaa 6 bilood iyadoo aysan jirin haddana cid ku dabagalaysa anna waxaan ka soo maqnaaday mararka qaarkood sanad iyo in ka badan lacagtana waxaa ii qaada gabadhayda ee sheekhow inta aan ka maqanay lacagta ii soo dhacaysay ka baxsan muddadii sharciga maxalaal baa lacagaha noocaas oo kale lagu qaato jihada ku siinaysa ee kugu kaalmaynaysa shuruudda ay u dhigtay ilaali حتى جهادو قالها النقطة قالدني إني مساعدة يا كالمدن بحيان شروط بأودجستين هداد شروط إلالين كرتو سيدا عاومات كو قادن كرتنا أهلا وسهلا هدادا شروط إلالين كرينا إلهي رزقي سوا واسع يا كويري السودان كليا حول كويس أما إنجليز كليا رزقه وكو حرين يا كويري هذون أقونين بان نولان شرتي صوما وإسلام دق intaasay la soo ekaatay iyadoon Sweden aqoonin Ingiriisna aqoonin Soomaa marka aqliyad sax ma aha waa nooc muxuu ay qazul fikriya waa asalahan san soo tilmaanay diinteenu beenna ma ogola khiyaanana ma ogola la gaal baan been wax laga qaadan karin wala muslim baan la khiyaami karin wala gaal baan la khiyaami karin waxa la mid ah dadka waaweyn caruuraha sidoo kale musaacadaadka iyo kaalmaadka iyo caydha ay siiyaan marar badan shuruud baa u taala ilmuhu inay muddada ayna wadanka maqnaan waa la iskala maqnaana dad baa meesha looga soo tagaya fooban bay u buuxbuuxinayaan lacagtii waa la soo qaadaa waa loo soo dirayaa meeshana lagu cunahayaa waa la khiyaamayaa gaaladii waradii risiqiina ilaahay baa qoray khiyaanada ka daaya gaalada muslim iyo gaal toona diintu ma sheegin in la khiyaamo marka maamada waxaan dhihi lahaa haddaadan wadankii qaban karayn isaga soo tago waddankaagii iska bismilayso insha Allah ta'ala ilaahay baa ka kaafinay wallahu a'lam jazakallahu khayran su'aashina 476 wuxuu leeyahay saa'ilkan assalaamu alaykum sida asalka ah waa in masaajidda loo dhisaa in alla lagu caabudo laakiin haddii masjidka loogu talagalay in lagu la dagaalamo dacwada saxiixa islaamka culimadana laga caayo muslimiintana laga takfiiriyo ma la oran karaa waa masjidu diraar ma si bannaan tahay in lagu tukado masjidka sifada uu qaadanayo
ومسجد الضرار مياه مس ومسجد التقوى لأن لبضها سئلها كده والذين اتخذوا مسجدا ضرارا معها كده مياه أيضا كده مياه لمسجد أسس على التقوى marka masaajidka sifada la siinayaa waxay ku xidhan tahay cidda dhisaysa niyaday ku dhistay iyo waxa lagu sameeyo markii la dhisay ilaa wasfiga darbigu ma qaato darbigan iyo dhagaxyaanta la qaatay diraar lama yiraahdo diraarku wuxuu ka imaanayaa cidda dhisaysa niyaday ku dhistay markuu dhisay kadibse maxaa lagu sameeyaa goobta maxaa lagu qabtaa hadii waxa lagu qabtaa ay qalad ama niyadiisuba ay tahay inuu dadkay muslimiinta ku dhibo ku kala jabiyo waa masjidu diraar waay hayelay Allah tabaaraka wa taala quraanka kariimka waa ku sheegay walladina ittakhadhu masjidan dirara kuwa samaystay masjid dib masaajid dibeed wa kufran gaalnimo wa tafriiqan iyo kala geyn bayna almuslimiina muslimiinta la kala geeyo wa irsaadan liman haraba Allah wa rasuulahu in loo sii diyaariyo oo tahayya loogu sameeyo kuwa ilaahay rasuulkiisa la dagaalamayo diinta la dagaalamaya xarun looga dhigaya masaajidka noocaas waa masjidu diraar haday munaafiqiintii waagi nabiga dhiseenna haddana hadii sifaadka noocaas masaajidku u yeesho waa masjidu diraar hadii tawxiidkii lagu la dagaalamo oo shirki lagu faafinayo oo muslimiinta lagu kala jabinayo oo dadka lagu dhibayo oo dadka lagu aflagaadeynayo oo kii dhisay qasadka ula qastay ama waxa ka socdaba wax noocaas uu yahay shaki wuxuusan ku jirin inuu masjidu diraar yahay laana diraarnimadu waa sifo afcaasha iyo maqaasida meesha ka socota ayay qaadanaysa ila ilaahi ka yiraahdo tabaaraka wa taala wala yahlifunna in aradna illa alhusna wallahu yashhadu innahum lakadibun markay masaajidka noocaas musaafiqiintu dhisayeen afka waxay ka dhaar kala haayeen oo waliba ku dhaaranayeen wanaag baan u jeednaa والله إنا وناك جينا خير بانو جينا مسلمين توم بامارة مساجد كلا كفوا قادويو ماشي أنا إسندي مالي كوي بعدستان وقسم أيه مسجد بانو لسينا والله يشهد إنهم لكاذبون إلهي وحمر خاتب فريا أو قرية إني بين لياليهين بين تضوى مركو سكست هذو روحوا وأمانو ساجدك أما قوبتي سو أمانو أمانتا يقارتا وحكا غالب وحميشك الصعودة لأن أصل كمساجد كوين الله لجو عبده وين لجو كليله وين دين تلجو فافيه وين مضى لجو مدايه وين دتك أهل الخير كيو أهل الله جمعنا وحويان لجو ويران لجو نبت جليه هذه مساجد كمركا ويا شو صفات كآيات تلمانتي لا شك مسجد درار ونقونية سلنا سي واحد تلماميسا وفائدة كلا هذه وقت جي النبي جينا صلى الله عليه وسلم مجع مسجد لا يسكو خلدي oo xarun diinta lagu la dagaalamayo masjid loo bixiyay si dadka loo khiyaamo maanta oo la joogo magacyo fara badan oo qurux badan oo ku soo jiidanaya oo sharci ah ayaa lagu khiyaamaya foojignow marka taadarkaaga lahow magac jihaad baa lagu khaldi magac tawxiid baa lagu khaldi magac masjid baa lagu khaldi magac islaam baa lagu khaldi waxaan oo dhan waa la isugu dhuntaa Soomaaliya laana waxyigiyo dagaya xilliga nabiga sallallahu alayhi wasallam baa xarun gaalnimo oo diinta lagu la dagaalamayo ayaa masaajid magaciisa loo bixiyay nabiga laga hadlo waxa la yiri kaas masjid ma ahe ha ku kadsoomin oo ha ku tukanin marka magacyada laguma yaani i'tibaar weyn ma lehe waxa xaqiiqada meesha taala ayaa xukunka mar walba uu la soconaya wallahu a'lam جزاك الله خيرا سؤالنا أفر بقول تضباطا يتضبط وحليه سائلكم السلام عليكم شيخ وحن قرصدي حاصل لباد مركزاتي هوري مسيرتي عرونا وإيه هيسا وحيسو استاكتي أما أنيقا أما إيادا دادكونا وحي يقولت ليين أنفسح مدن عصب وايو إيادا فضد أنيقونا تاس وحان واركا إني تهي ظلمي الشيخ دي أنفسحو ريركي هرو يدو دلباني سفرين كما دبا بسم الله الرحمن الرحيم marka koobaad horta ma banaana haweenka la isla qabo inay midood ay ninka ka codsato ama ay weydiisato inuu takala furo arintaasi horta waa xaraan nabigeena sallallahu alayhi wasallam hadith abi hurayra fi sahihayn
وحيري ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها هوينيدو ييسن ويديسن ولا شيء إلا فره si ay weelkeeda waxa ku jira ay u gadisato ay u rogato weelkeeda waxa ku jira waxa laga wadaa bimaana qaybteedii si ay u qaadato ayadoo halka ku socota iyaynan furitaanka dalbanin oo ninkeeda ayna ku bareshar garin ama furiyaysan dheen arintaas horta waa dambi oo aan yarayn salada labaad haday bay iyadu masiirsan tahay oo shaydaan ku shaqaysanayo oo ay arinta noocaas la timaado in lagu ateecay waa khalad لأن الحديث كما قلنا tilmaamayna wuxuu leeyahay inma ta'atu fil ma'ruf haday qaldan tahay haweyntii la furay la qabay fur way ku qaldan tahay xadiiska cadeey tii iyada ahayd in lagu waafaqo lagu raacana waa khalad kale inma ta'atu fil ma'ruf wa nabi sallallahu alayhi wasallam ruux waxa laga yeelo lagaga amar qaato lagu ateeco waa waxaan shariicada khilaafsanayn wixii khilaafsan maya hadii ay noqoto seen yeela jawaabtu waxa weeyaan labada reer isku wad ayadana way iska digi doontaa masayrkeedu iyo iska tartiib gabadhan islaameedna halu goynuna ha furin haday noqoto inay soo noqon weydo tanaasuli weydo noqoto ama aniga ama iyada haday taagnaatana labadooda in la furo waxa mudan midda furitaanka codsanaysa taasa mudan in la furo laakiin miskiin reernimadeedii ogol tan in lagu raali geliyo lagu furaay ma saxsan inta wixii ka dambeeya nin tuur le dab u saxday isaga yaqaan wallahu a'lam جزاك الله خيرا سؤالنا 478 وحولي سائلكنا السلام عليكم شيخ أمل هل فردي سدح قبضات ما اللي يقوم مهرين كرا مثل أقل قري كرا هل هبين سدح قلوا يسودوا ninkaasi waxa uu maleelay nin dhalinyaro oo aad u xanaaqsan inuu yahay oo shaasi xiisa badan u qaba waxaan xusuustay markaad aad u oonto oo oon badan ku qabto oo oonku ka tambato ama gaajadu waxaad isugu sheekaynaysaa malaha hadii 20 litir lagu keeno waa dhamaysan lahayd marka ninka gaajo badan baa ka muuqato wuxuu isleeyahay malaha 3 baad habeen yaab hadeen wada mari kartaa buu isleeyahay inta kadib masalada labaan u kala qaadaynaa haday noqoto hal fadhi 3 dumar ah ma ku wada mehersan kara jawaabtu waa ha hal fadhi 3dooduba meherku waa qabanay bal 4 baad ku mehersan kartaa lagu ogolay laakiin hal habeen 3 ma la guri gali kara oo 3 qol oo isku soo jeeda ma kala dajin kara jawaabtu waa maya sababtu waxay tahay sababtu shariicadu waxay tiri haweeneyda marka la guursado haday gabar tahayna 7 habeen bay xaq u leedahay hadii haween kale la guursado 7 habeen bay xaq u leedahay oo ayna tii kale u soo dhawaan karin haday garoob tahayna 3 habeen bay gooni u leedahay oo kuwii kale ayna la qaybsanayn وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين بمعناها تلمامية حديث أنس بن مالك وحليه من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها 7 وقسم السنة دي طريق النبي صلى الله عليه وسلم نينكو هدو غورسدو غبر أما إنان غشانتيا ونغور صومرين mid horay u guursatay isagoo sii qabay haduu takale guursado gabadha ama inantaa wuxuu agteeda joogayaa 7 habeen marka kadib uu bilaabaya qaybintii wayda tazawwaja athayyiba ala albikri wuxuu guursaday haweenay garoob ah aqama indaha 3 thumma qasam 3 habeen bay xaq leedahay in la joogo waa aroos marka kadib 3da markuu iyada si u dhamaato buu qaybtii bilaabay
أبو قلاب حديث كورنا يوحوليه هاي هدان دون وحان له لها أنس حديث كان النبي قارسي صلى الله عليه وسلم والنبي أيو كورنا يا حديث البخاري مسلم رسول صاري سيداس درادت مد ولي بوحي لا هاي هدي قبليهين ونقولوا هرمرنا مد ولي بتدوبة ده بين بلاده مركز تدوبة مدن كبحي تكلت تدوبة كسر تكلنا تدوبة كسر أما هل هبين بنصدق قول السوق هنا أي اسكحي حاجة هذا الوركاس سعون باي وركاسي ورص أحسن مأوه والله أعلم. جزاك الله خيرا. سؤال شيء أفر بقول تضباطا يسجل وحولي سائل كان السلام عليكم شيخ محمد قف نول قف كله مكا دحل كرا هدي وكده حل هذا الكيسة ملا عسكن كرا. مسألة كوساب سن كدحل الكروح لا يدحل أما جليتان كروح إن لقلو ومسألة سوكم واحد جيمبا كدحلي أرواح خبيثة كدحلي إلبا كنتو روح إن لا إليستو سحر باكيني كرا جيمبا كيني كرا وأمراض أو محوها الروحية وواحد شره نصوص وحي شيكتي وقرآن كشيغي إن أو تشينكو بني آدم كصوحة أما واشة إنو تشينكو أو صوحية أو لكدو ورب تبارك وتعالى في سورة البقرة وككشيغي الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس الشيطان باتابتي markaasuu maskaxdiisii saameeyay waa ka hagabsanay oo ka caqufaya waa dhacdhacaya laana shaytaan baa taabtay shaytaanku aadamaha marka inuu gali xadiista nabiga sallallahu alayhi wasallam way tilmaanto inna shaytaana yajri min ibni aadama majra dam inuu shaytaanku aadamaha dhiigiisa la socdo oo ilaa qalbigiisa gaadhayo wax u sheegi karo oo uu ku dhex jiro نصوص تويت المانتي وأنا مسألة ليس له أقول يهي إنه تشينكو إنسيجو جل كري وكذلك الأرواح الخبيثة وحدان الأرواح الخبيثة يعني وحوي أرواح ذا حن إيش كو إيمانية سحر كو إيمانية إني آدمها أوجد بكرانا ومسألة ليس له أقول يهي الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله أيا ويلكيسي عبد الله باوحوا ليه أباه وحنكو إن أقواما يقولون إن الجنية لا يدخل بدن المصروع أباهي بوحن كوري برداد بوحيليه تشينكو الروح صوحيا تشيركي سمجل كرو أحبنا كما تشرو مركز الإمام محمد وحيري يا بني يكذبون هو ذا يتكلم على لسانه بنتود ويابر وابا كانوا عرب كيسيبوا كوها الله ياي سيبوا سنقول تشيرين بول صمادا نرق روح وحكا حليان oo waxa ka dhax hadlayay luqadiisi luqadan haynu ku hadlay Soomaali afjayna ku hadlay maarta adiga waxaan ku dhex jira afjayna sax ku hadlay asagoo waligi Faransiis iyo Ingiriis baranin buu Ingiriis iyo Faransiis daldalahaya waladu sidee maxaa hadlaya meesha ruuxan wax ma baranin Ingiriis ma yaqaano hadduu soo miirsado laba xaba isma saari karo markii uu lahayana wuxuu ku hadlaya afjaynihi oo sax buu ku hadlaya شيء نصح وقال بلدو سيد مركب والو دح جرا وحبا جرا waxa noocaas oo kala ah ama jimbu ka iimaan ama sixir buu ka iimaan ama ilbu ka iimaan waxyaabo noocaas oo kala ah amraad noocaas marka way jirtaa waana xaqiiqo jirta waa saas daraadeed wuxuu leeyahay ibn al-qayyim alayhi rahmatullah inkirida nooca la inkiraay cidda inkiri kartaay waa ruux cilmiga iyo aqliga iyo macrifadu ku yartahay buu wax yar ka haysta cidda inkiri karta maxay yeelay asal ahaana waxay leeyihiin waa shay mushaahad ah waa shay la arkay waa shay la taabtay waa shay aan la inkiri karaynin طيب taasi midaas weeye oo siyaabo kala gedisan bay ku yimaadaan say bini aadamka u galaan say la isugu gudbiya waa hawlo kala weey ama mas'alada ku saabsan ruuxan warka ka dhaxalaya iyo wuxuu sheegayo ma la rumaysan karaa jawaabteedu waa maya hadduu intuu ka dhaxal yiraahdo hebel baa ku sixray ama hebelaa ku sixirtay laga dhageysan maayo hadduu yiraahdo hebel baa ku ilaystay ama hebelaa ku ilaysatay laga yeeli maayo maxaa yeelay waxaan meesha ku jiraay hadduu jin yahayna waa shaytaan
siday u badan tahay hadduu saaxir yahayna ama waa gaal ama waa faasiq hadduu il yahayna waa hawl kale si uu yahayba waxani waxaa u badan tahay inuu yahay wax beenaala ah inta badanna shayaadiinta iyo jinka ayaa hawshaasi asal u ah shayaadiinta markuu nabigu ka hadlayna wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam sadaqaka wa huwa kadhub waa been badan yahay nabigu sallallahu alayhi wasallam waxaa dhici karaysa shaydaan intuu soo dhexgalay aadamahaas oo uu ka dhex hadlay ujeeddada uu u soo galay inay tahay inuu dadka isku diro isku fasaadiyo wadaad baa quraan saaraya markuu quraan saarana wuxuu leeyahay ma maqashay haa islaantaada ku sixirtay islaantaadii baa ku sixirtay haa islaantii baa laga dhex hadlo haa waxay sheegtay haa ninkaagaa ku sixiray ninkii baa laga dhex hadlo haa wixii ka dhex hadlay wuxuu yidhi islaantaadii cambara ahayd baa ku sixirtay wadaadkii wax quraan saaraya markaba waa la ordayaa wuxuu leeyahay maam haa warku waa saxo sixirku halkaasuu kaa gaadhay waa shaydaan way wadaadkaasi waa shaydaan shayaadiintu ku shaqaysanaysa waa laana wax way warkan uu qaadayo ee bulshada ku fasaadinayo ee guryaha ku duminayo ee uu dadka isku dirayo ee uu quluubta ku kala fogeynayay waa shaqo shaydaan waa asagu ma is ogaada ma yuusan ogaana sidaas daraadeed warka in la rumaysto oo wax lagu dhiso oo dad loo gudbiyo oo cuqad lagu kala qaado oo gobol la isugu dhigto oo lagu xisaabtamo mas'aladaasi qat'an wax saxsan ma صح روح waa la dhex gali karaa waa la dhex hadli karaa laakiin hadalkaasi lama rumaysan karo inuu run yahay dhici karta inuu been yahay waa dhici karta beenta u badi wallahu a'lam جزاك الله خيرا سؤاشينا 480 wuxuu leeyahay saa'ilkan assalaamu alaykum sheekh waxaan leeyahay timajare timaha madaxa oo kaliya lagu ma jiro karkana waa lagu xidhaa odayaashana timaha ayaa lagu madoobeeyaa ee sheekh lacagta halka ka helay maxalaal ba gadka xiiridiisu waa xaraam حديث النبي صلى الله عليه وسلم باسيداس فايدينيسا والنبي كو امر صلى الله عليه وسلم كرك ان لسيداي ان الحيرين جماهير اهل العلم وحي قبان سلفا وخلفا كرك حيرديسو انه حرام يحي بل امام ابن حزم غيرك وحي سو غورينيان ان ليسكو وافقسن اجماعته كرك حيرديسا حرام نمديد مرضي مساله سيداس تahay حيردنا حرام تahay كسمينيا حيرينا حرام بو سمينيا xoolaha sida kugu soo galana waa xaraan asaga xiiraya wixii ku soo galana waa xaraan midka meeshu u furan tahay xoolaha sida ku soo galana waa xaraan hadii ruuxii atimahana u xiirto madaxana u xiirto garkana u xiirto lacagna laga qaado garka aad xiirtay inta ku soo hagaagaysa lacagta ku soo hagaagaysa waa xaraan intii timaha madaxa ku soo hagaagtayna waa xalaal saad u kala garan lahayd naday ku taala dambina waa ku dheeriye sooma sidaas daraadeed dadka ay u furan tahay goobaha timaha lagu xiiro waxa waajib ah inay ku gaabsadaan wixii shariicadu u ogolaatay adeer shaqo aan garka la xiireenin ma soconayso haday timaadana iska xidhba shaqooyinku waa badan yihiin sooma shaqo garka lagu xiirayo xoolo lagu raadsanayo adeer xoolahaasi waa xaraan laana falkay ku iimaanaysa xaraan kasab xaraam wallahu a'lam جزاك الله خيرا سؤاشنا وسؤاشي قدام بيس حلقتنا نعاوى وانا سؤاشا 481 وحولي سائل كان السلام عليكم شيخ مسين كرا زكاة قبض عرورتيد واي قالد وقاتين سي اي قبصة اللوير ها والله سين كرا دي محتاجتها هاي اما يكون دي موضوع اما مسكين تهاي وحي هوشا قبصة طبعين هينين وحي سوق ليسا انما الصدقات للفقراء والمساكين مساكينتنا وهدتك وحيستا لكن وحي هيستان ايسان كوفي اللين اما وحي قلي كرتا اني ديمي وضي والغارمين دتك الدين تقلي الديميسان بيقلي كرتا مقصد كعرور مسلمين ان لبد بادينا وواجب شرعيه سيداس دراديد الزكاه ولا عاون كرا هدينا وحكو فيلان هيسنين هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم